بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد جامع حاشي دكتور حاشي from Columbus Ohio. waxaan rabaa inaan xogaa wax ka iraahdo cudurkan hadda kusoo kordhay adduunka ee COVID-19. waxaan rabaa dhowr su'aalood inaan isweydiino jawaabna aan u helno si aan wax uga ogaano intii Ilaahay naga garansiiyo. ugu horreyn su'aasha koowaad waa maxay cudurkan COVID-19? cudurkan waa cudur cusub oo uu keenay virus la yiraahdo coronavirus. coronavirusku waa group viruses ah oo qaarkoodna dadka ku dhaco qaarna xayawaanada uu ku dhaco. marka kii dadka ku dhici jiray ma aha midkaani. kan dadka ku dhacana usually wuxuu keenaa hargabka iyo waxyaabo lamid ah, laakiin kani waa mid xayawaanka ku dhici jiray. weliba waxaa la yiraahdaa paadka fidmeerta dadka qaar si u yaqaanaan, qaarna kabiliga u yaqaanaan ayaa usually ku dhacaa. marka wuxuu kasoo gudbay xayawaankii, wuxuu usoo gudbay dadka markii ugu horreysay. marka dadku uma laha difaac cudurkan maadaama weligood aysan la kulmin, daawona looma hayo, tallaalna ma laha. saa darteed baa adduunka oo dhan maantayto lala fajacsan yahay wixii laga yeeli lahaa cudurkan. qofka uu ku dhacana daawo ma laha. inuu safmar dad badan oo adduunka uu u laayo ayaa hadda laga baqayaa. marka cudurkaas coronavirusku halis aada u weyn buu adduunka hadda ku hayaa. calaamadaha lagu garto cudurkaani maxay yihiin? waa su-aasha labaad. cudurkan tiisa wuxuu ku dhacaa habdhiska neefsashada, laga bilaabo hawamareenka, dhuunta, sanka ilaa sanbabada. sanbabada ayuuna aada wax u yeelaa. marka calaamadihiisa waxaa ugu muhiimsan qandho, neef qabasho iyo qufac. habdhiska neef hawamareenka haddii cudur uu ku dhaco, waxyaabaha ugu muhiimsan oo keeno waxaa weeyaan qufacaas iyo neefta oo qofka qabata, shortness of breath. waxyaabo kale uu keeni karana waa iska jirtaa, laakiin saddexdaas ugu muhiimsan. wuxuu keeni karaa daal fara badan, body aches. wuxuu keeni karaa maarata qofka cuntada diida, nausea iyo waxyaabo lamid ah. marka markii uu neef qabashada keeno, wuxuu gaari karaa qofku heer uu u baahdo oxygen ama ventilator in lagu xiro ICU-da, meesha dadka aada u liita lagu hayo in la geeyo qofkaas. su-aasha saddexaad aan isweydiinayno waxaa weeyaan sidee loo kala qaadaa cudurkan? waxaa loo kala qaadaa cudurkan in qof baahi uu qof aan qabin la kulmo. markaasna haddii labadaa qof ay isu jiraan 6 tallaabo ama 2 mitir, qofka cudurkaasi qaba markuu qufaco ama uu hindhiso ama uu maaragtay hadlo, waxyaabaha kasoo baxaya afkiisa dropletiskaas viruskii baa ku jira. marka viruskaasi wuxuu u gudbi karaa qofkii ag taagnaa, ama afkooda afku qofka ka galahayaa, ama sanka ama indhaha, mucous membrane-ka waxaa la yidhahda uu ka galahayaa. kabacdina wuxuu usii gudbahayaa sanbabada. halkaas ayaa qofka cudurka uu ka qaadahaya. waxaa kaloo dhici karta qofkaas qaba markii uu qufaco ama hindhiso in viruskii uu ku dhaco dhulka ama maaragtay meelaha u dhow derbiyada iyo waxaas. iyo viruskaas marka wuxuu ku noolaan karaa meeshaas saacado fara badan, maalin iyo inka badan baa la yidhaahdaa, inkastoo weli aan aada loo ogeyn. markaas qof kaloo meesha iska marahaya oo qofkaan aanba u dhoweyn, hadduu taabto meeshii viruska uu ku dhacay, kabacdina uu maaragtay gacanta uu sanka saaro ama afka saaro, gacantiisoo virus lahayd, waxaa dhacaya isna inuu saa ugu gudbo. marka wuxuu ugu gudbahayaa dhowrkaas yaabo kala duwan. marka waxaa laga rabaa qofka qaba cudurkan ama qof kastaba marka uu qufacayo inuu ku qufaco maarata suxulkiisa saas oo kale, oo si uusan qof kale ugu gudbinin. sidee looga hortagi karaa cudurkan? cudurkan waxaad isaga ilaalin kartaa in gacmahaaga aad dhaqatid, hand hygiene, gacmihii in la dhaqo 20 minutes at least, 20 seconds I say, 20 seconds ugu yaraan gacantaada inaad dhaqaysid. Apply soap, rub your hands palm to palm and wash the backs of both hands and in between your fingers. Then palm to palm with fingers interlocked. Clasp your hands together and rub. And then clean around the thumbs too. Rub your fingertips in the palms of your hands and finish off with the wrists. Rinse your hands really well with water and dry them thoroughly with a paper towel. waad ku dhaqdid biyo iyo saabuun. biyo keliya maaha, biyo iyo saabuun. maalinkiina in badan aad gacantaada dhaqdid markaad meel taabatid oo kasta.
waxaa kaloo aad isticmaali kartaa hand sanitizerska boqolkiiba 60 in ka badan alcohol basic ah jeermiga way dili karaan. marka muhiimaddu waxa weeyaan in gacmaha la dhaqdo waxa ugu weyn oo looga hortagi karo cudurkan. waxaa kaloo ugu hortagi kartaa in la kala dheeraado, dadku inay kala durkaan. marar badan waxaad TV-ga ka arkaysaan in la leeyahay dadkii ha kala fogaadaan si cudurka aysan u kala qaadin. maxaa yeelay qof kasta oo 6 tallaabo kuu jira ama 2 mitir kuu jira hadduu cudurkaas qabo, marar badanna lama oga cudurka inuu qofku qabo. hadduu qabo oo uu qufaco ama uu maaragtay hindhiso ama uu kula hadlo, cudurka waa ku gudbin karaa qofkaasi. marka waxaa loo baahan yahay social distance, physical distance, dadku inay kala fogaadaan si dadka cudurkaas qaba aysan ugu gudbin dadka aan qabin. waana hadda midda dowladdu Mareykanka iyo dowladaha kaleba ay dadka kula talinayaan. iskuuladii waa midda la xiray, meelo badan oo shaqaa waa midda loo xiray si dadku maaragtay aysan isugu dhawaanin. maqaayadihii iyo baararkii iyo sports eventskii iyo meelihii dadku isugu imaan jireen oo dhan waa tan la joojiyey. even political maaragtay rallieskii dadkii doorashooyinka usoo baxayay waa tan la joojiyay meelo badan oo kamid ah. marka waxaa nala gudboon annagu haddaan nahay Somali community-ga meel kastoo aan joogno in aan raacno talooyinka dowladda iyo awaamirta kasoo baxaysa iyo dadka caafimaadka, hay'adaha caafimaadka talooyinkooda inaan raacno. marka waxyaabaha haddaan soo koobo waxyaabaha la isaga difaaci karo waxaa ugu muhiimsan in dadku kala dheeraado, in gacmaha aad loo dhaqdo, in guriga meelaha maaragtay mar aad loo taabto ama xafiisyada dadka ka shaqeeyaan mar walba la sanitize gareeyo oo la tirtiro. albaabka meelaha laga furo, door naabiska, nalka meesha laga daaro, miisaska, si haddii iyadoon la ogeyn qof cudurkaas qaba intuu ku hindhisa meeshii ama maaragtay viruskii meesha uu joogo si looga tirtiro oo looga dabargooyo. su-aasha ugu dambaysa aan isweydiinayno waxaa weeyaan cudurkan daawo ma leeyahay? sofa ilaa hadda cudurkan wax daawaa looma hayo. sida keliya ee cudurkan looga hortagi karo waa in laga hortagaa. sida keliya loo daaweyn karo waa in laga hortagaa. daawo looma hayo, laakiin qofkii uu ku dhaco oo uu si xun ugu dhaco istaalka la seexinayaa, oxygen baa la siinayaa, waxaa kaloo la siinayaa baalka la yirahdo waxaa loo xidhayaa ventilatorska. waxaase jirta in dadka intooda badan 80% in cudurkaani si sahlan uu ugu dhici karo, laakiinse weli ay gudbinayaan oo dadka la isleeyahay cudurku si dhib leh ugu dhacayaa oo ah dadka waaweyn iyo dadka qaba cudurrada wadnaha iyo cudurrada sanbabada iyo dadka sokorta qaba oo cudurkaani uu halis ku noqon karo oo ilaa maaragtay istaal inta la seexiya u dhiman karaan. dadkaas u gudbin karaa qofka sida khafiifka ugu dhaco. marka dadka dhalinyarada oo isla adinka laftigiina wax idinma yeelahayo, si fiican buu u yeeli karaa. dad u dhintay baa jira oo dhalinyaro ah cudurkan waddan kasta. marka ka hortag waa waxa loo baahan yahay in la sameeyo meelaan joognaba. waa in awaamirta dowladda iyo khubarada caafimaadka la raaco. waa in maaragtay cudurkan sidii looga hortagi lahaa loo wada guntado. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. raxmadee behey soo shuba lagu riyaaqaahe, raxmadee behey soo shuba lagu riyaaqaahe, ragaceele rati weyna iyo rumaga reediisa, ragaceele rati weyna iyo rumaga reediisa, reer nuur duglo roob u da'ay reedda mari mayno, reer guulano roob u da'ay reedda mari mayno, runirgood inaan ku raraan raalliyoy rabayee